haddaba haddaad ka cabsan jirta cudurkii mpox waxaa loo helay talaal. haddaba warkaas waan idinla socodsiinayaa wax yar. waxaan idinkaga hormarinayaa baryahanba waxay soo wacayay waa hooyooyin iyo dad khabiiro ah oo isku tilmaamaya run ahaantii in berigii hore cudurkii aad ka hadlaysay maalin dhaweed ee furuqa loo yaqaanay uu kan la mid yahay. furuq sidaa la socotaan waxaa laga cirib tiray Soomaaliya waa 70meeyadii, waana ka hadalnay dhowr maalmood ka hor. page-kayga haddaad booqatid waad ka daawan kartaa asagoo bilow macal dhamaad leh, ama booqo YouTube-kayga oo sidaad profile-kayga haddaad tagto waad maaragtay laftigiisa waad ka heli kartaa asagoo aad ka daawan karto cudurka furuq. balse aan usoo noqono cudurkii mpox waxaa loo helay talaal. wadamada qaarkoodna waxay hadda bilaabeen inay shacabkooda qaarkood ee talaalaan. waa dadkii raba, waa haddii aad rabtid. sidoo kale maanta ilaa iyo shalay waxaa shacabka loo sheegayaa ee dhammaan wadamada Yurub haddii aad u socoto safar oo aad safar ku tahay Africa ama goobaha cudurkaas laga helay, waxaa lagula talinayaa inaad iska talaasho cudurka. oo waxaa jira talaal aad talaali karto kaas oo run ahaantii ka caawinayo in ay dhibaato kaasoo gaarto cudurka mpox-ka. haddii aad talaasho ama vaccination-ka aad qaadato wax dhibaato ma arkaysid. waa sida ayaga ay sheegayaan. haddaba sidoo kale haddii aad doonaysid in aad la socoto wax walba oo cudurka mpox quseeya, halkan nagala soco, na follow gareeya. run ahaantii yaab weye videoda qaarkood 300,000 ayaa daawanayso. marka waxaan idinka codsanaynaa inaad soo follow gareysaan. lacag idinkama rabno, waxaan rabnaa un bas inaan platformkan idinkugu soo gudbino wararka saxda ah, marin war cad oo run ah inta ugu imow. na follow gareeya, share gareeya. run ahaantii waxaana rabaa inaan idin sheego haddii aad doonaysin ama aad aragtid barnaamij muhiim ah, noo soo dir. message-keena waa furan yahay, waa public, anytime waad noo soo diri kartaa message-yadeena. waxaana idinkaga soo bandhigaynaa ama baaritaan ballaaran idinkaga soo sameynaynaa waxaad kusoo aragtaan baraha bulshada. kusoo dhawaada goor walba. maanta waa maalin kale kana duwan shalay.